dacwad ka dhan ah wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa maanta waxaa la geeyay maxkamad ku taala magaalada Hargeysa. Ilyas Cabdi Cali wariyaheena ayaa warkan Hargeysa ka soo diray. dacwadda ka dhanka wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon ayaa maanta ka bilaabantay maxkamadda gobolka Muradjeex ee magaalada Hargeysa. wariyaha waa ciidamada booliisku saaka keeneen maxkamadda waxaa lagu soo wadeeyay inuu warar propaganda ka faafiyo madaxweynaha Soomaaliland isla markaana uu caadeystay erayo kulida qaranimada Soomaaliland sida uu raadiyo kulmiye u sheegay qareenka u doodaya Cabdimaalig Muuse Coldoon garyaqaan Mubaarak Cabdi. sidii sheegay daalaha kiiska haya oo maxkamadda u sheegay inuu Coldoon caadeystay inuu isticmaalo kelmado Soomaaliland qaranimada dhibka ama wixii ay ka mid tahay taliska Muuse Biixi iyo taliska Muuse ayaa si kala hadii kuwa kale markiina ay wax ka bedelo gali kareen laakiin aan arkay tahay aragtida qof cabiro taliska aan caad iyo cayd laakiin yahay administration ma nidaam maamul oo meel ka jira arinta kale iyadoo la yaabkay inta ajiibka lagu noqonayaa waxa weeye Ilyas soo weyn in ay Coldoon qoray sawirka madaxweynaha inuu ka soo dhigay sawirka madaxweynaha iyo madaxweynihii hore ee dowladda deegaanka Soomaaliya galbeed Itoobiya xadgudubay oo ku qoray taliska Muuse Biixi waa taliska u korayo sidii taliska xadgudubay oo kale maxkamadda dastuuriga ee Soomaaliland ayaa toddobaadkii hore soo saartay in dacwadda wariye Cabdimaalig Muuse Coldoon lagu qaadi doono magaalada Hargeysa isla markaana maxkamadda gobolka Muradjeex ay ka garniqi doonto kadib markii ciidamada booliiska iyo xeer ilaalinta Soomaaliland ay sheegeen in falal la xiriira nabadgelyo darro awgeed ay ka codsadeen in maxkamadda gobolka Muradjeex lagu qaado. wariyaha oo laga soo xidhay horaantii bishan magaalada Burco ee gobolka Togdheer ayaa ciidamada booliiska ku soo xidhan fikirkiisa oo ku baahin jiray baraha bulshada kadib markii ay dhibsatay xukuumadda madaxweynaha Muuse Biixi oo hogaamiyay sida uu sheegay garyaqaan Mubaarak Cabdi oo u doodaya Cabdimaalig Muuse Coldoon. ciidamada booliiska gaar ahaan waxay baaritaan dowladda waxay maxkamadda hor keeneen qoraal la xiriira heerka information case ama warbixinta ilaaga dacwadda oo ay kaga maxkamadda ugu soo bandhigayaan والله لا حيننا عندنا كيشي ولا واني شيلين عطينا كرفنا صوتا بيان ولا هي أقول بديلا سكان فلسوا حكينا ده أربعة رمضان دارسين في يوم ده هذا شيء دارسين بس سمية هذا قول كنا حيشاك عندنا شيء xaaladda wariyaha ayaa garyaqaanku ka deyriyay isagoo sheegay inuu u baahan yahay dhakhtar degdeg oo la kulmo si xaaladiisa caafimaad loo daweeyo. Ilyas waa mahadsan tahay. magaalada Marka ee xarunta gobolka Shabeellada Hoose haddii aan eegnana waayahan baa go'doon ay ku jirtay dadka magaaladaas ku noolna dhibaato weyn ay ku qabaan oo maciishada ayaa ku qaaliyooday. go'doonkaas waxaa lagu eedeeyay dowladda Soomaaliya iyo xarakada Al-Shabaab. warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Axmed Abuukar Sabriye. magaalada Marka oo xarun goboleed u ah Shabeellaha Hoose waxaa muddo ka badan bil saaran xayiraad dhinaca socdaalka ah kadib markii ay labada dhinac ee Muqdisho iyo Afgooyaba ka kala go'doomiyeen dowladda iyo Al-Shabaab. wadada ka baxda Afgooye ee aada magaalada Marka ayaa waxa ay muddo ka badan 8 sano u go'doonsanayd dagaal beeleedyadii muddada dheer qaatay ee ka socday magaalada Marka waxaana hasha wado ee kaliya marka loogu aadi jiray ay ahayd dhinaca xeebta ee Jaziira taasi oo ay ugu dambeyn iyaduna dhowaan go'doomiyeen ciidanka dowladda. Al-Shabaab ayaa iyaduna ka go'doomisay dhinaca Janaale taasi oo ay jawaab uga dhigtay go'doominta dowladda ay ku sameysay wadada dhinaca xeebta ah ee Muqdisho loogu aadi jiray. halka marin ee hadda u furan shacabka magaalada Marka ayaa ah safar dhinaca badda ah waxaana baaris aan sameynay ku ogaanay in iyaduna taasi dhibaatadeeda ay leedahay uuna jiro saxiix laga qaadayo qof walba oo doonta raacayo si aan hadhow mas'uulka ama shaqaalaha doonta loogu qabsan haddii ay dhibaato ka timaado safarka dhinaca badda ah weerar ama halisaha ka dhasha xilliga daweylaha in badda lagu safro. ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa iyaga oo ka cabanaya mushahar la'aan waxa ay dhowaan baneeyeen deegaanada Gandarshe iyo Dhanaane kuwaasi oo durbadiiba ay la wareegeen Al-Shabaab oo markii hore deegaanadaasi laga saaray. intaasi kadib maamulka magaalada Marka ayaa go'doomiyay wadada xeebta ah si aysan Al-Shabaab ugu soo qaadin magaalada Marka weeraro ay ka soo abaabulaan deegaanadaas sida ay xaqiijiyeen mas'uuliyiin ka tirsan maamulka magaalada Marka. dhinaca kale mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda ee ku sugan gobolkan Shabeellaha Hoose oo ka gaabsaday inaan magaciisa adeegsano ayaa go'doonka ay ku jirto magaalada Marka ee deeda waxa uu saaray ciidankii baneeyay Dhanaane iyo Gandarshe waxaana uu wax laga xumaado ku tilmaamay in mushahar dartiisa ay u baneeyaan furimo dagaal oo muhiim ah.
saraakiisha oo ka talinaysa dhanaane saraakiishaas horta saraakiil oo ciidankooda u qudbeyn karo oo si fiican ugu qudbeyn karo maysan ahayn ciidankaasi oo meesha jooga waxaa meeshaas ugu tegey sida warbixinta ahaayo mushaar daraadiisa mushaarna ciidaada hooy in loo faaruqeeyo waa xaqdaro go-doonkana waxaa keenaya ciidanka meesha oo isfaaruqeeyo wadooyinka in laba isku dagaalayso labada isku dagaalayso waa al-shabaab iyo ciidamada xukuumadda oo dawladda Soomaaliya waxaa jeclahay in oo ay isfahmaan oo dagaalka al-shabaab lagu jiro hal dhinac inuu noqdo marka inay